رئيس الوزراء هذا جوجا أحمق بنيامين نتنياهو أو أفرديان United Nations كإسرائيل أفرديان 1985 هي خطبة كأخرية الأمم المتحدة وحليه لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل وهذا الحلم يراودنا منذ 2000 عاما تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين بولي حشري بولي كالقعل وين هدانو يهودنا هي نوقبني دولكي إسرائيل لكن رياضة يداسي لابا كنو سندود بانو قبني بويري وحسد اللاعيون نب كدغاي كريستيان صهيونيغا وبنيامين نتنياهو يا ولي كريستيان صهيونيغا ايا نو سورته غليي inaanu xilmigaasi dhab noo noqdo ma yuhuud jacayl ay u samaynayaan kuwani maya waxaabay rumaysan yihiin kuwaasi la yuhuudda ha la siiyo qudus waxay rumaysan yihiin qudus marka la siiyo ee ciise uu soo dego yuhuudda ay rumeeyo odhan doonaa dabeetana way beeninayaan boqol iyo waxoogaa boqol iyo 70 boqol iyo dhowr iyo 40 waxaasaa la sheegay intaa mooyaane intaasaa rumaynaysa buu leeyahay yuhuudda inta ka soo hadho dhan ciise dibi doona bay leeyihiin marka meeshii lagu layn lahaa isugu geeyay bay rumaysan yihiin naxariis ay waayaba maaha halka hal isugu geeyay bay qabaan su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay awsaad isticmaariga ahayd ee reer galbeed ee cilmaaniga ahayd siiba reer galbeedka dhammaantii marka la isku wada daro yuhuud xal waxay u arkeen inay iska saaraan weliba waddanaan yurub hayn loo saaro maalan markii dagaaladu kaga bilaabmeen yurubta bari yuhuudda qarniga 19aad dabayaaqadiisii baa loo laayay galbeedka ay u hijroodeen maraykan ingiriis dhammaantood way ka mamnuuceen waddankooda inay soo galaan waxaa lagu cadaadiyey inay qabtaan xagga iyo falastiin inay qabtaan waa loo diiday waxaan filayaa inuu balfour laftiisa yahay 1905 ninkii soo saaray immigration looga ingiriiska ka mamnuucaya inay yuhuuddu soo gasho waddanka iyadoo la rabo in la geeyo meesha aynu sheegayno ninka sahyuuniyadda aasaasay siyaasigee dambe sahyuuniyaddu fikrad bay ahayd muddo soo jirtay kristana ka soo dhex jirtay aqoon-yahanadii yuhuudeedna ka soo dhex jirtay ninkana aasaasay mu'asisa xaqiiqiga ah ee Theodor Herzl la yidhaahdo Theodor Herzl wuxuu ahaa nin maxaa la yidhaahdaa wariye ah journalista ninkan fikraddan inuu aasaaso maxaa ku kalifay weliba wuxuu ahaa kuwa aaminsan alindimaajka in la isku darsamo kuwa aaminsan ayuu ka mid ahaa oo haddaaba aaminsanaa indimaajka maxaa keenay inuu aasaaso fikraddiisa tan xaggay ka timi waxaa dhacday 1894 baan u malaynayaa ayaa drafasxa dhacdo la yidhaahdaa dhacday dhacdada tani waxay ku saabsan tahay nin Alfred Dreyfus la yidhaahdo oo kabtana ayaa jiray oo yahuudiya oo ciidanka Faransiiska ka tirsan Faransiis iyo Jarmal baa isdilay dabeetana Jarmal baa Faransiis baa laga magaalada filayaa waana la soo jebiyay Faransiiskii dabeetana dadkii yuhuudda necbaabaa waxay yidhaahdeen kabtanka yuhuudiga baa sirteennii faafiyey ee waa in ninkaa la maxkamadeeyaa la dilaa ninkii baa la soo qabtay maxkamad baa la saaray kabtankan yuhuudiga waxay tilmaamayaan taariikhyahanadu in la dulminayay oo kabashul fidaa un laga dhigtay maxkamaddaasi ayaa Herzl looga soo diray meeshiisii la odhan jiray Hysteria inuu soo tabiyo warkeeda waxa wariye kayskaasi maxkamadda ka socda
كيس كيس عانوها توصل حدود بالسعودي دور قرب الله حكومي آخر كي مركي هو دنيا وحبيكو قادين درجة كالرفان أترى البيل آخر كي إن يبان تالو قادي أول سوداي لكن ثيودر هرتزل كان لا يراهدو وريوها دعدadaasi gudbinaya dabeetana wuxuu caqiidaystay dacdadaas waxay ku kalluumeeyo Yurub xataa haddaynu u dhimanno oo u dagaalanno haddaynu yuhuudnahay inaanay aqbalaynin waa halkii ninkii carbeeda laga sheegay law kharajta min jaldik lama acrifaka bay yidhahdaan jaahid ayaa bogiisii maxaa la odhan jiray albukhalaa ayuu wuxuu ku soo qisal soo aroorinaya nin marwasiyo intuu xaggaa ka yimid ciraaq yimi dabeetana nin ciraaqi xoog soo dhaweeyo wax badan siiyey oo ku yidhi maruuna soo booqo si fiican ma kuwali maruuna soo booqo muu booqa nin beri dambe ninkii ciraaqigaa dhibi ku dhacday baa la yidhi marwuu tegey ninkii marwasiga ahayo salaadii uu ku garanayaa buu tegey markaasuu u kala furi waayey markaasuu yidhi war mala cumaamadan iyo waxan baan kugu garanayna oo iska dhigay markaasuu furi kari waayey markaasuu yidhi war mala khamsaantan iyo maryahan waaweyn baan u garanaynin wax walba wuu dhigay bay dhahay markii dambe kii bakhaylka ahaa yidhi low kharajta min jaldik lama acrifka haddaad diirka iska siibtana ku garan maayo waxay idhaahdaa Theodor wuxuu qaatay fikradda ah xataa haddaynu diirka iska siibno Yurubina garan mayso haddaynu u dhimanno u dagaalanno wax walba aynu u samayno laynama garanayo wuxuu yidhi markaa xalku waa inaynu Yurub ka guuraa xalku waa inaynu Yurub ka guuraa wuxuu qoray buug la yidhaahdo dowlad alyahuud oo kaga warramayo markaasi xalkaasi inuu yahay Yurub in laga guuro shirkii koowaad ee sahyuuniyadda ayaa 1897 lagu qabtay magaalada Basel ee Switzerland ka mid shirkaasi waxaa ka soo qayb galay baa la yidhaahdaa ilaa 200 oo ergo oo u badan Yurubiyankii reer bari yuhuudi bari oo u badan yuhuudi cilmaaniyiina ama ishtiraakiyiina ama waxaasi laakiin waxaa kaloo kala soo qayb galay laba nin oo kristan oo waaweyn midi labada nin ee kristanka waa niman sahyuuniyiina midi waa Henry Dunant waa ninkii aasaasay bahashan Red Cross-ka la yidhaahdo Red Cross-kan meelahan marmaraysa ninkii sameeyey weeyaan Henry Dunant waa nin sahyuuniya waa raggaasi lahay Falastiin hala dejiyo yuhuud waxaa kaloo shirkaa ka soo qayb galay isagana William Herschel wadaad Ingiriis ah oo safaaradda Ingiriisku uu ku leeyahay Vienna jooga oo ah wadaadkii Theodor Herzl iyo siyaasiyiinta reer galbeedka Theodor nin wariyo yar buu hama gaadhin ninkii isku xidhay xalaqatul wasliga u noqday weeyaan labada nin baa kala soo qayb galay yuhuudi caamka ahayd fikraddan weli kuma qanacsana oo waxay yiraahdeen shirkooda tan markii hore Munich ku qabta dabeetana yuhuudda diiday sidaa ogeed baa meesha tan loogu qabtay yuhuuddu dadyogoodii tirada badnaa waxay u arkayeen kow inay diinta khilaafsantay oo inaynu Falastiin ku noqono isagaan Messiah soo bixin diinta ka hortimi bay leeyihiin laba waxaynu burinay qaanuunkii ilaahay inuu firdhiyay bay leeyihiin sina qaanuun ilaahay buu hayo waa burinayna marka wadaadadu waa ka soo horjeeday saddex meesha dawlad Cuthmaaniya baa haysata iyo carabta digari laynooma ogola inaynu degno marka yuhuuddu caam ahaan fikradda way ka soo horjeeday laakiin nimanka reer galbeedka ah siiba qoladaasi siyaasiyiinta ah baa riixaysay fikraddan in yuhuud Yurub laga saaro yuhuud in Yurub laga saaro waayo Herzl laftiisu ma ahayn mutadayin waxay yidhahdaan carruurtiisi maxay yidhahdaan midna waa ka gaaloobay midna intuu waa shay buu isdilay inana suuqa xunbaa bay ka gashay marka reer yuhuudinimada xataa haysta isaguba ma ahayn laakiin qowminimada ah meesha laguma noolaan karaba isku raaceen yuhuudi waxay qaadatay markaas ama sahyuuniyiintu waxay qaadatay fikradda ah in Yurub laga baxo waddan in la yeesho
luqana la samaysto aynu isku afgarano waayo imka afafka ku hadlaan midna mid lama afha luqa inaga dhaxaysa oo aynu isku afgaranana in la sameeyo luqadooda alexair nin la yidhaahdo stereo filaya inuu dhashay 1920kii ayuu xoogaa dictionary sameeyey ka soo ururiyey afafka kale xoogaa cibriga hore ay tukan jireen in badan oo af carabi horta inta caayda ay waa af carabi beemka yahuuda la inta caayda wuxuu ka qaatay carabtii meelaha joogtay waxa kan dictionary buu sameeyey iyo in luqada dib loo nooleeyo waxay kaloo qaateen xagaynu degnaa waayo nimankan sahyuuniyada koowaad ee wada mutadayiniin maaha marka aaraa badan baa soo baxday aaraada waxaa ka mid ahayd argentiin in la dego waxaa ka mid ahayd bay yidhahdaan russia qaybo ka mida in la dego waxaa ka mid ahayd in meel ay uganda ku sheegaan si aan uganda ahayn in la dego waxaa ka mid ah in libiya la dego meelo badan laakiin masiixiyada sahyuuniga iyadu ee maalkana bixinaysa siyaasadana maamulaysa iyagu waxay ku cadaadinayeen meelaan falastiin ahayn inaanay noqonin dhacdooyinkaasi waa soo socdeen 1897kaasi iftiraaxaadkaa la soo bandhigay waxaasoo dhan baa ku jiray 1903kii mu'tamarkii u dambeeyey uu hersel ka qayb galo waayo 1904kii buu dhintayba ingiriiska nin ka mid ah wasiirkii mustacmaraadka ingiriisku wuxuu soo bandhigay 5,000 mayl oo square ama 13 kilomitir oo square oo hadba maw la yidhaahdo ugandhay markaa ka tirsaneed hadda laakiin kenya ka tirsanta gobol kenya ka tirsan hadda weeyaan meel kenya ka mid ah oo maw la yidhaahdo qaabatu maw waa meel u dhow ayuu ingiriisku idin siinayaa soo guura halkaa dega shirkii loo fadhiyey 295 ka mid ah acdaadii shirka isku timi baa u codaysay in halkaa kenya la dego 177 baa diiday go-aanku wuxuu noqday in la dego meesha ka dabeetana wafdaa la soo diray ah inay dhulka soo eegaan iyo siduu yahay waxaa la yidhi dhulkaa waanu libaax badan yahay niman masaay la yidhaahdo oo dagaalyahanina waa degan yihin meelaynu degi karna maahay waftigii ku soo celiyeen dib baa looga noqday fikraddaa haddana طبيب يهودي بحرين دقنان جري oo Russian asalkiisu ahaa ayaa hadana 1917kii wuxuu soo bandhigay oo Ingiriiska u soo bandhigay in Bahrain iyo Ahsaaya inta Sacuudiga iyo inta loo jaro oo la dajiyay Yahuudiyada fikradda way nimankani waa qowmiyiin raba dhul dadka degan intay xaaqaan ay degaan ee diin iyo baabkaasi markaa ma buuxa يوروب أوردرنا فكرتنا إن الصارة ويكفكريه مثلا جرمال الراشي صدق حد وحيقاتين جرمال كوكله متقشكر ميشان ليرا متقصر إن يهود اللي دجيو قصب لقود دجيو ومركب إذا هو جرمال قالته إن يهود اللي حاقه وقصب لقود دجيو متقشكر لدجيو أفكار تاسي قلبيت كآدة ونحمرت صاد ضوء حلنا يوروب يهودي إن لا رأوا وودن كيوروب لا رأوا وودن دباديدو كلا للدجي أما لاتين أمريكا هالنقط أما إيشيا هالنقط أما أفريقيا هالنقط إن تبنا دور لقت المامي قرم تاني مكاو راشيا كو قبصدي مربع لقون ديين للدجيو meeshay doontaba ha noqotay yuhuud in meel lagu ururiyo laakiin waxaa soo xoog badanaysa fikradda odhanaysa war falastiin baa ugu munaasabsan fikradda odhanaysa falastiin baa ugu munaasabsan oo kow sabab diiniya loo masiixiya nimankii diinta masiixiga ee restorationka aaminsanaa ay aaminsan yihiin oo laba sabab ijtimaaciya labay leeyihiinoo waxay leeyihiin yurub faa'id bashariya baa jira casriyada waxay odhan jireen dadka inugu batay ee weynaynu dabadda qabadsiina dowla qowmiya ma qaadi karta bay leeyihiin faa'id bashariga kale waxay kaloo rumaysnaayeen asbaab iqtisaadiya daraaddeed oo waxay u arkayeen
yurub tabari yuhuudda ka timi inaanay qaadi karin ingiriis iyo maraykan iyo kuwan ay dhaqaale ahaan daraaddeed saa daraaddeed inay isdhaafiyaan asbaabaha iqtisaadiga waxaa ka mid ah matalan cabdiwahaab almasiri ninkii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay israa'iil maraykan waxay u tahay xaamilatu daa'iraat wuxuu leeyahay maraykan haddaan israa'iil jirin wuxuu ku qasbanaan lahaa 5 markab oo xaamilaatu daa'ira ah oo mid waliba 10 bilyan uu ku baxayo inuu Mediterranean Sea intaasi dejiyo buu leeyahay laakiin waxa uu qiimo jabnaatay buu leeyahay intuu yuhuud meesha dejiyo inuu 10 bilyan iyaga siiya hal xaamila daa'ira ay la qiimo yihiin waxa uu siinayaa buu leeyahay saa daraaddeed inuu xaamilatu daa'iraat bay u tahay buu tilmaamayaa yuhuud bay u tahay dee madaxweynaha hadda jooga Biden isagoo senator u khudbadeeyay markaasuu wuxuu yidhi 3 milyan aynu ku invest garaysanay Israa'iil 3 milyan oo ka fiican oo la invest garaysta Maraykanka weligiiba ma invest garayn leeyahay shirkad buu ka dhigay babaasha inay tahay meel dhaqaale la gelinayo 3 milyan aynu Israa'iil gelinay buu leeyahay 3 milyan oo ka fiican oo in investment aynu maalgelin u samaynay weligeed ma jirta buu leeyahay idan Israa'iil sabab diineed iyo sabab dhaqaale iyo sabab isticmaariya intaba ولذلك بقى مرايكم انتي وجري دوريا أفرتم فيتو أيو إسرائيل يا فلسطين درتو دوخدي سو كتاجريا إسرائيل هلا لبكوني لا تكي لا لبكوني أفريا لا تكي أفرتا سنة دوجه لبي طبعا فيتو وفلسطين كسر جدول خدي 4 years لبي طبعا فيتو لبي كسر جدول فلسطين دوخدي إذن هو دولة استعمارية فلسطين وحيوجفتها ولذلك عبد الله النفيسي خبير اللي هذا وحليه رير قلبي دويري عالم الإسلامي مركا إنه أجنبه لي شرن شري لصومالي شرن شرد كواد بيقولي وحوى ينكسر العظام وين الطمين ومدافيع يهوبا لينو قراعي هدو فرنسيسي هي هدو هولنديسي هي هدو طلياني هي هدو بريطاني هي هدو جرماني هي دمانتود waxay hub iyo ciidan haysteen bay ku garaaceen mulay marka ina garaaceenna maxaddada labaad bay u gudbeen oo ah buu yiri maxaddadu taqsiim wa tajzi'a sidii neef xoolaa inay inoo googostaan oo ina qaybsadaan sida cunada la inoo qaybsado oo quruska la inaga riday u gudbeen maxaddada saddexaad buu leeyahay waxay bilaabeen taqriib في التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة صناعة النخب يعني dadka talada inoo haya inay inoo sameeyaan oo ah tacliinta iclaamka iqtisaadka dhaqaalaha iyo xukaamteena dambe in iyagu inoo tababareen maxaddada afraad buu leeyahay waa alilxaaq aliqtisaadi dhaqaalaheennay dhammaantii waxay ku xidheen dhaqaalahooda oo dhaqaalaha caalamul islaam oo dhan wuxuu kobciyaa uu yahay maalgelin uu yahay dhaqaalaha reer galbeed maxaddada afraadna buu leeyahay وإسرائيل سمينتها والدولة الوظيفية والله قلت لك لي يقول لي أفرت محطة هرينا نمرنا بدوي دولة لي شغلة إسرائيل الله نسي أفرتي شقاء وقبلي استعمار تيا هيد مدافع لك وقراعستا تيا هيد نقالها تيا هيد تغريب أفرتي شقاء وقبلي إسرائيل ما هو هيسيبوا لي إسرائيل ما كان وحى الله نسي يقول لي inay ilaaliso wadcigii uu samaystay reer galbeedku inaanu caalamul islaami marba iska bedelin مثلا تجزئتنا ay sheegayno waxa jira program ay yiraahdaan Yinon Palay waxa jira nin la yiraahdo Odit Yinon waa nin wariyan ahaan jiray la taliyihii Ariel Shamir la taliyihiisi weeyaan Yudat Balamku waa 1981 article uu qoray markii dambe NATO uu akhrinayay article kaasi wuxuu sheegayaa waa article leh caalam islaami hadda waa 23 dawladood duwalkan carbeed uu sheegayaa waa 23 dawladood laakiin waxay ku fiican yihiin in 46 laga dhigo buuleey waa aragtini yahuudi soo jeediyay oo NATO u sharxayo oo markii dambe la yiraahdo waa afkaartu bush ku qanacsanaa bay tilmaamaan inay ka mid ah idan wuxuu leeyahay
waxa loo dhisay Israa'iil waa inay ilaaliso afarta qodob kale ee isticmaalku uu samaystay ayuha alahib أقول فيلن دور قول قرآن تلمام تشرشل ووزير المستعمرات كه هراء إنجليزكا ورئيس الوزراء هراء إنجليزكا تشرشل ووزير المستعمرات كرئيس الوزراء النهضة وحليه ينبغي أن تغضو فلسطين يهودية تماما مثل ما هي إنجلترا إنجليزية وحبون بولي فلسطين إن يهود النقطة سيدا إنجليز بإنجليز وليه لكن عرفت مركو لها اللي وحكالو شيء مركي اللي يدي محد وحاو شيء سنة وحيدو عرفت وسيدا إيجو كلابو يدو مركات حوقو هرات الضربة أدبكو لفليفي يدو وشارش الوريس سيدا إيدا لولا نقما بيودا داد هرات القوبة دي صوت لفليف كقوبة دي نيانو ليه أووغي ساقا شارش الكا أووغي أياو 1841 سنة وحو قري وراقو ودرايو يهودي مجلس يهودي إنجليز كنكي هيستوى ولاية إن استعادة اليهود لوجودهم كشعب في فلسطين أمر ميسور إذا توافر عاملا إن شعب يهودي كعلنا فلسطين يوضل كودا النقطة وأعرف ضد ولاية لما وحو بينه بحنة لبدا وحوا محي يهودينا سوقا عساك iyo duwalka reer galbeed inay taageero muujiyaan labadaba way u baahnay bidii wax kale inuu baahnay ma jirto in meesha lagu celiyo idan duwalka qarbiga ah ee qadiiman wa xadiisan isku soo dar Almania Germany Francisca Ingiriiska مثلا نابليون بونابرت وانكي كواد صور عصر حديث كعالم الإسلامي وأنكي كل واقع يسوون فلسطين إن للسير ولا سير إسرائيل إن لدتشي فلسطين وعد بالفور هروس ما يسوي جرم القصاصك يعني وقت بدن وما هنا نقواش وتصور نقليه لكن وحين لا نوافق ردا يسكون رأسي سنين اللي ممكن القلباني ووينا يسياسيين تودونا إلا يلا سو قالوا 1970 1917 محاد عي 1917 إنجليز كوزير خارجيه سي أيا وراقه قري قضاء مع القبان كهاي يهود إنجليز كحكومية لورد روثشيلد وراقه وقري وحوش يجيا يسعدني waxaan ku faraxsanahay buu leeyahay inaan ku soo gaarsiiyo anigoo boqorka ka wakiila sida aan u jecelahay yahuudiya sahyuuniyadda iyo xukuumadda ingiriisku inay rabto wadan qowmiya in loo sameeyo shacabka yahuudeed oo Falastiin looga sameeyo idan hadday tahay Napoleon tasriixiisi qaysarkii Almaaniya وهرتسل مركي ورادينيي ونكي لو سو ديراي انو كلا هدا بقركي عثمانيين يا عبد الحميد نكي لا هدي ويا marka boqortooyadii haysatay Jarmal iyo tii Ingiriiska iyo ta Faransiiska intuba waxay leeyihiin Falastiin hal la dajiyo yahuud marka maanta inaynu la yaabna ma dawladii reer galbeed ee xuquuqul bini'aadamka iyo waxaan ilaalinay waxaan miyaan arkay iyaga keenay iyagaana ku haya iyagaana raba inay joogto sida awgeed waxaan soo koobi doonaa taariikhda dambe aan ka warramayo aad baan u soo koobi ingiriisku saddex ballan buu galay ama qaarkood declaration waa dee وبيامين ما وعد لكن ضدك وعد بيكون الماما سدح وعد بوسمي بلفور ديكلاريشن وبلفور ديكلاريشن كاسي واحد هذا نسخة دي أصلها أفعيب ربال بقري وحانا قري نكي لورنجري نحن سوكولوف ويهودي راشيا يدنكا كسو هجروتي إن نسكا سيلو قره نسكا عبريا ومكان كل واقع دون قرال كيسنا وحد رجال يبين هذا حايم ويزمان
حايم ويزمان ومدحويني كواد إسرائيل لكن أنت وين نقول حايم ويزمان وأن كميسة وأن كيسو صاري أستو كبهشان ليناو دقالك كواد الدنيا وإنجليزكو قالي ونكي كعاوية إنجليزكو مدافع دي سيقدم تاليهيسا وحي بارود نقول لها يلغو سمينها بهاشا تبع الله عليك سبي marka wuxuu noqday nin boqortooyada iyo dawladda Ingiriis aad uga agdhow maadaama uu dagaalkii koowaad raad weyn ku leeyahay inventionkiisii uu sameeyay waxa loo ballan qaaday marka wacdiga kan Balfour Declaration oo sheegaya in nimanka meesha la dejiyo laakiin Ingiriisku khabiisnimadiisa waxa ka mid ah saddex heshiis oo midba mid burinaya buu galay wacdi Balfour yuhuud buu qaaday سايسبيكوتنا وحو قاضي حلفديسي سايسبيكو waxa weeyaan dagaalkii labaad ee dunida markii uu bilaabmay ayaa waxay soo yimi xulafada dadkii ahaa waa Russia iyo Faransiiska iyo Ingiriiska negotiation muddo socday 1915 kii buu bilaabmay ilaa 1916 November ilaa iyo May buu socday ayay ku heshiiyeen marka ay jabiyaan dawlad Uthmaniya عالم الإسلام سيدا وقيب سنة يا ملقى هشيني هشيس كاسي وحو قرية قيب مصر يا قيب تاين إنجليز كاللو دايا عراق يا قيب كالوكا ترسلنا إنجليز كو إنو مامل غارسيو أدوون إنجليز كاللو دايا سوريا يا لبنان يا أردن يا إنا سير رعسسان وطبكي قيب تيسو هوسكا ترسلنا فرانسيس كالسيو راشا كان اسطنبول iyo Armenia iyo intaan la isugu daro heshiiskaas la wada galay laakiin dagaalkii labaad ee dunida socda heshiisku qarsoodu aha marka dunida ciidamo ogay dagaalkii koowaad ee dunida wali socda ayaa Russia tawradii ka dhalatay Bolsheviga ahayd 1917kii dabeetana shuuciyiintii baa heshiiskii soo saaray Faransiis iyo Ingiriis baa isku kacay markaa wuxuu kaloo galay heshiis saddexaad oo ah Sharif Hussein kii haystay Xijaaz حجاز وحمامله شيء الدولة العثمانية لأنه وحي ومقعود شريف حسين كي هيستي حجاز أيو إنجليز كان نينكي وفرديا المندوب السامي القاهرة وفرديا أيا الله وضح الله وحلوه الشيء إن الدولة العثمانية الغوة ذكعه شريف قينو عربت الدقال قليو ثورة الكبرى إن لا سمايو شريف كان إن الدولة الإنجليز بقر كان يقدونتو عالم كعربية ضوردن سيبا شام يا عراق يا حجاز يا إنتان اللي سقطر دونه وخلافة عربية الله سمين دونه صدح داب بلنا إنجليز فوق علي كي يهودو بفريه لما دي كلنا وطوليه كي شريف كوابريه هو شريف قد يسوى مسافر اسبوع قدره يبقى مركي تنبيه قبرص شريف كما في دمه waxa loogu diray مسافر قبرص markii laftu ka sii baxaysay baa cumaan la geeray oo Faransiiska uu khiyaameeyay oo ciidamo wato Shariifku inuu dhalay ayuu yiri Suuriya inta qasafaysa kii loo dhinjay dabeetana Faransiiska ogaaday Faransiisku dagaal ku soo qaaday meeshii dib uga qabsaday dabeetana wuxuu geeyay Ingiriisku haddana Faysal kii Shariifku dhalay Ciraaq haysta buu ku yiri Ciraaq uu geeyay ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo Cabdillaahi oo inankii labaad uu Shariifku dhalayna wadana jirib buu sameeyay meelaha wada baaha شرق الأردن نهر الأردن بريش أيوة بقى وطنا ولين تاريخ الهرم لو ما مقال وطن لا يراد الأردن يشرق الأردن تونا مجرد صح الأردن لا يراد شرق الأردن بعد أنا وطن قوي أنا هالكاسة كل كبيرة هذا هو المساس فرانسيسكو مركو تاو قاعدي فيصل في دمشق جايين تيبا وقف صدي وحسكو سوق صدي لا لبنان إذا إنجليز وسدح دي هشيسة وقالي وحنقو فولي كي يهودا labadii kalamana
oo cagsi ku ahaana labadaba wuu buriyey markay 1915 marayso ayaa ingiriisku wuxuu soo diray nin yahuudi oo ingiriis ah oo la yidhaahdo Herbert Samuel 1915 waxaa lagu yidhi bal in Falastiin dowlad yahuudeed laga samayn karo orod soo indhaydhe wuu yimi wuu noqday wuxuu yidhi meesha tan dadka degan waa 1915kii boqolkiiba 94 waa Falastiin markaa ma suurtagal aha dowlad yahuudeed in laga sameeyo ingiriisku markaa saddex dagaal buu la galay dowladda Cuthmaaniya meesha nimka Gaza la yiraahdo saddex dagaal ku galeen dabeetana waa la jabiyay meeshii buu qabsaday waddanadii Carbeed markay qabsadeen xulafadu waa shireen waxa la isweydiisay inuu gala waxa la yidhi qaybo waa waddanna iska dhisan muassasaad iyo xukaam iyo xoogaa baynu samaynaynaa intidaab raqam 1 baa la yiraahdaa qaybtaasi qaybana iyo waddanna jira maaha waa soo dhisaynaa qaybay u qaybiyeen waddannadan Carbeed ee meelahaas oo dhan ka dhisnaa waxay yiraahdeen iyagu waa raqam 1 marka la yiraahdo maxaa looga jeedaa waxa la leeyahay tamthiil daakhili weyn waddanku yeeshaa baarlamaan iyo madax iyo kala dambeyn laakiin manduub saamiyo ingiriisina waynu ka sii sareeyaa wax uu jooga masar boqor baa haystay sidaas ay u dhisnay dowladii baarlamaankii laakiin manduub saamiya ayaa jooga Iraq sidoo kale kuwa kale Suuriya sidoo meelaha kale oo dhan saasaa laga dhisay Falastiin mooyaan Falastiin markii hore waxay ku heshiiyeen iyaga iyo Faransiisku in ay meel ummad oo dhan ka dhaxaysan noqon karto laakiin Falastiin markuu qabsaday Faransiisna wax kama siinin tamthiil uu diiday oo yaa maamulaya markaa 1920 buu wuxuu soo diray yahuudiga inuu hore u tilmaamnay marka hore soo diray Herbert Samuel ayuu 1920 u soo diray manduub saamiya Falastiin inuu noqdo waa yahuudi sahyuuniya nimankii meesha rabay mid ka mid uu yiraahdo xukun manduubkan saamiga ahi muddo yar gudaheed wuxuu soo saaray 100 qaanuun oo dhulka ku saabsan bay yiraahdaan wuxuu sameeyay kayaan yahuudi oo mustaqila oo leh nidaam bangi nidaam tacliimeed nidaam enerjiya taaqo nidaam dhismeed nidaam mustashfiyaat nidaam baarlamiya ciidamo intaas oo u gaara yahuudi sabab Falastiintana waxa la yiri idinku waxba ma yeelanaysaa manduubka saamiga baa dhamaantiin hoos tagaysa qawaaniintu soo saaray dhulku sida dhulkeenana kale iska aha meelaha magaalooyinkana la degan yahay dhulla uu banaan iska yahay oo ninkii doonada beerta qofa wuxuu keenay war oranaya wixii dhul banaan dawladda leh wixii dhul la leeyahayna cashuur dheeraad ah bixinaysa wixii cashuurta bixin waayana dawladda qaadanaysa dabeetana dad badan oo aan wadda kaba deganayna dabadiisa ilaa dhulka islaamigu uu isku xidhnaa marka dadka dhulkan leh qaybo badan oo ka mid ah Lebanon iyo Dimashq iyo Istanbul iyo dhulkaas ay deganaayeen dhulalkoodii buu la wareegay dhul kasta uu la wareego wuxuu ku wareejiyay ururada yahuudu dib u siiyaa lacagta ka qaada wuxuu yiri luqada cibriga ah luqadii ay samaysteen luqada cibriga ah waa official language وحين dadka cibriyiintu waa dad ka tira badantii marka iyaga hubka waa loo ogoliyay dawladda training siinaysa waxay bilaabeen marka in yahuudda la train gareeyo la tababaro oo dawladda Ingiriis ay tababarto dhisma lagu waday yahuudi meesha soo degaysay in la dhiso Falastiinta meesha deganna in dhaqaale ahaan siyaasad ahaan askari ahaan si walba in loo gumeeyo مثلا موساد كاين كوجرا يهودا اساس كيسي 1919 بلا سنه يدو انجليز ماشي جوغا لا سنه يعني صدر سنه دولتنimada ka hor bala سنه ciidan kamaanta ilayhin Israa'iil bilowgiisii 1909 bala bilaabay haga waxa laga bilaabay jabhado la tababarayo أقول هانسو بسو الجامعة العبرية قدس كل سجال مغلي الشريعة لبعض كبار الفرق
warshadaha ay leeyihiin ay samaysteen 1935 bay wax dhoofinayeen waqtiga aynu caynkaa leenahay falastiin qunsulkii ingiriiska u fadhiyi jiray dowladda Cuthmaaniya waqtigeedii 19th century ayaa dowladda ingiriis waxay tidhi yahuudda waddanka degan oo dhan soo tirakoob buu sameeyey 9665 meelaha 10,000 wax ka yar bay noqdeen yahuudda falastiin oo dhan degan waa taqriir ingiriis ku qoray inay waqtigaasi 1838 inay ahaayeen 9,690 qof inay ahaayeen 1940 sidii hijraadka yuhuuddu u imanayay waxay soo gaadheen inay 8% yuhuuddu noqoto 29% ay falastiin yihiin markaan eegno 1919 ilaa 1948 afar goor baa kolba la qiimeeyay yuhuudda imanaysa ingiriiska ogolaanaya markii hore wuxuu ogolaaday sanad kasta 7,000 oo yuhuudi inay soo degaan mar labaadkii wuxuu ogolaaday sanad kasta 24,600 oo yuhuudi inay soo degaan mar saddexaadkii wuxuu ogolaaday 57,100 yuhuudi sanad walba inay soo degaan mar afraadkii wuxuu ogolaaday 34,900 oo yuhuudi inay soo degaan هذا واحد قياسته وضن يرى إنتان لك والله إذا سند والبوح السوداء يشن يصدقون وضد أعصب مركا واحد بلادني ثورات في ضد فلسطين تي ودك الدقنيد سيدان السيما هبيدا وحوه الرئيسي أما ثورات يقوه الرئي وحكم إذا كنت سقال مغلي قوابي على وطنكي ثورة يافا مقالة يافا الله يدهده مركي كعظم في حوق بطي ayaa ingiriisku waa shaytaan wuxuu yidhi guddi committee baa la saaraya arrinka baadha committee baa la soo diray waa la baadhay Churchillkii ay ogeyn wuxuu sheegayay ayaa isna la soo diray wasiira waa busteeyay dadkii wuu dajiyay waqti yar kadib haddana 1929 ka waxa bilaabantay thawratul buraq thawro ku saabsan meeshan buraaqa la yidhaahdee derbigan ay madaxa ku garaacaan ayaa la isku qabtay dabeetana waxay damceen inay derbiga qaataan muslimiintiina waa diiday dhowr boqol oo yuhuuda baa dhimatay dagaal baa dhacay ingiriis baa lagu kacay thawro aad u xoog badan baa dhacday kadib baa waxaa la yidhi guddi ha la soo saaro guddi aan ingiriisku ku jirin oo caalamiya loo diray guddiga caalamiga ahayd markay indhaysay waxay yidhaahdeen meeshan waa mulki muslimiintu leedahay لكن يهود هلو قالوا إن الساعة عن وقت قام كنت كذا وإحنا كمان نسنكرا دوري الصدق كي ومركل للسوق قاري ترادي يهود وحي كسر دبته بقول كي ما صدق دتك وده كدقري كون سقال بقول يلي صدق كي بروح دعي ثورة دي وقوم الله عنيد شعب والسمايو وصدح سنة دودو اسكت اكتسعتي ثورة 36 إلا 39 سعودي ثورة داسي إنجليز خد دجال حكم بولقال وحكي كنتم كنوا عسكرية إنجليزة ومدافع دودي يعيدن كي بضع يديورو دودي وحود أبو طالك يعني دبتنا وحال حاقي فلسطين تي شعب قاهي المدهرات يسكوك عصرين وحال الددشية توبرد يهود اللي سينجري waxaa loo tababaray yuhuudda ciidan cusub oo la yiraahdo special night squad la yiraahdo ciidanka habeenkii dagaalama general Vingate nin la yiraahdo la keeno tababar ku bixinaya waxa dadkii la dajiyana loo adeegsaday boqoradii carbeed ee meelahan ku gumaysanayay kuwii baa u yimid waxa la yiri Falastiintii daga arkii u dagi waayay mu'tamar baa London lagu qabtay mu'tamarka London lagu qabtay go'aan buu soo saaray Ingiriisku leeyahay waxaad dalbateen oo dhan waad ka aqbalay 10 sanadood gudahood xorriyad baan idin gaarsiinaya 10 sano gudahood Falastiin xor bay noqonaysaa xorriyad baan idin siinaya heshiiskaas markay Carabi soo qaadatay oo dadkiina degay 1939 dagaalkii labaad ee dunida bilaabmay dabeetana Ingiriis wixii waa iska tuuray wararka markay maqleen nimankii sahyuuniyadda ahaa tababaradoodii ciidan dhiskoodii diyaar garowgoodii wixii bay tiro badiyeen
ciidan bay dhisteen ka badan ciidamada wadannada carbeed oo dhan marka la isku daro waayo ciidamada wadanadan carbeed ee ingiriisku gumaysanayay masar baa ugu badnayd oo ciidan yaroo 10 kun jooga iyaguna dagaalkii koowaad yuhuudi 60 kun bay ku galeen ragga badna waxay leeyihiin 160 kun bay gaarsiiyeen ciidankooda yuhuudi waxay samaysatay markaa ciidan aad u tiro badan intii uu ingiriisku meesha joogo ingiriis laftiisa markay heshiisyada ka maqmaqleen weerar bay ku qaadeen ilaa 700 oo ingiriis ay dileen ingiriisyadoo sidaa loo leynayo iyagu iska aamusnaan wax badan waa waqtiyada ay soo bixi doonto waraqahana dadka ku aragtaane ah shamiir oo irhaabi la daydeeya ama golda maayer oo irhaabi la daydeeya ama benagorian oo irhaabi iyo waraqahana dadka ku aragtaa waqtiga uu soo saari doono 1948 markii la gaadhayna dagaalkii wuu dhammaaday 1945 United Nations iyo cusub la sameeyay ingiriiska tamartiisa hoos bay u dhacday israa'iiliintii ciidankoodii waxoodii bay dhisteen ilaa waqtigaa laakiin laga soo bilaabo 1920 ilaa 48 laga gaadhay Israa'iil waxay dhul qabsatay oo dhan wuxuu ahaa 6% hadda waa dhulka ay gacantooda ku jiro dhan 6% weeyaan ingiriisku markaas wuxuu yiri 1947 wuxuu yiri kayska Falastiin wuu igu cuslaaday United Nations kan geeyay markii uu balaqaaday inuu ma siinayo dawladnimo wixii baa inta ka baxay ay wuxuu yiri kayska United Nations kan geeyay United Nations kana markaa baarqab cusub oo Mareykan la yiraahdo ka dhex doobay dawladaha Carbeed intooda ugu badan waa la gumaystayo kaba ma mid ahaad dawladaha xorta ah United Nations ku jira gabdhood baa la xiqotan dawladood oo Yurub u badan iyo ogaa Latin America iyo meelahaas jaabo muslimba kuma jira laga yaabaa ma waa mudan markii United Nations la geeyayna nimankii sahyuuniyiinta loobig bay bilaabeen inay qaar la alushaan dawladaha badhkood soo la alusheen badhna Truman oo ahaa masiixi sahyuuniga ayaa u hanjabay go'aankii ka soo baxay wuxuu noqday go'aanka taqsiimka loo yaqaan in Falastiin loo qaybiyo Yuhuud iyo Falastiin markan la qaybinayo maxay kala haystaan 6% Yuhuud baa haysata 4% Falastiin baa haysata United Nations wuxuu yiri markaa oo Mareykan hogaaminayay 5% Yuhuud hal la siiyo 5% Carabta hal la siiyo oo 4% bay degan yihiin sidee loo siinayaa 5% way 5% waliba 5% ka loogu daro xeebta iyo saxaaraha biyaha وإسمان بوحي وقاضي سحارها بئر الصبع يا قاكذا سحارة النقب إني بالبيوت هاي دولها يو حيبتا دولها هلصية 55 ودتي دقنانا يا وحي معنو نقر يا ونا لحاقه لما قرن دتي دقاري حقا قمانيا إلا بقولي ما في إسكاشن بيدقيني عرفتي أما فلسطين الشعب في مركز الديدين قايبين تاس قيمة تمركز الديدين يهودي الدجال بالبلاد عربنا ويسصاو السطو الدجال بالبلاد دجال كاسي يهود أي بلادي تروح مكوكب جوا أول شيء يقدم بالس يبغى في بس جديد ضباط أنا قصدها لبي الله باتنا إن فلسطين توصاها كذب مركي أي 500 إن كبدل قار 500 يلي حصة ضم بيشجان قار 500 يلي بيصد ضم بيشجان هذا 500 إن كبدل ومقاله يتولو عربي تجريد ببابيين 500 ومقاله إن كبدل أي لبابيين سقاشن مذبحه أي سمايين مساكس سيد الشيء عربو حكوا هذا مركها غزة هو 1% غزة أنا مغلسة وحنا ملاينا ينتهي أفر مقاله هي اللي حرق قطنتيو بس قدرة ملايين قلنا قطاع غزة غزة هو 1% كأه وضنك هي الضفة الغربية 19% أنت أساكو صاحبي وهالزيمة ده أنت لاقي السداي وبعضه
حول عضي إنجليز 1946 أيوه حسبيه وحلا إلى الجامعة العربية أو كم دي هي المندوب السامي البريطاني جامعة العربية بكتيرة عربت الصدح عيدا بصور ورياضة قالوا قلا كوحي waxay ahayd koox mujaahidiina oo al-jihaad al-muqaddas oo nin Abdulqaadir al-Husayni uu wato oo iyagu dad is ururiyo gaarkooda oo inay dagaalamaan ku dala galay qadiyaduna dhabkatay qaybna wuxuu ahaa markii la yiri Falastiin waxa qaadatay yuhuud baa la siiyay mutatawwiiciintii muslimiinta meelaha isaga timid kuwaas si aanay dagaalka u galin dawladii Carabeed waxay yiraahdeen xiriyeen oo sameeyna waa tababarayna inaga hubid Husayni halka soo gala dagaalka laga reebay qaybta saddexaadna qaybta mutatawwiiciinta qisaan ka sheega oo Subaaci مندوب أخوان المسلمين في سوريا سباعي ورشيلي سباعي ما وحيد كوي معمولة يبيت كم إذا يوضح الله مركزي وحكوي لي عيدا كان ينادخل سوي في السباعي ورمي الوالد وامحي ما يشهد مهندسين تيا إنجنير رضا يا تنو وحنا نوكي توامحي وروح وجا بلطجية أنا في المدينة كنتو ماشي إنه قالينو هذا يمدنا ندي بلايين النافتي بايعي هذه ده أي ماشى قبصدان ندي وحواي نسوا كورنيل وما حين يعني نمر بين وحلا حرية وما يحين قيمة الصدحات ما تقالنا وعيدا مدي عربد عيدا مدي عربد يا مدح لوجا نجى وح مدح لوجا نجيين وحيستو نين إنجليزا فلادو غياس إنجليز فلسطين هشتا ولكين عرب عربتين إلى دجالتهم عيدا كلا دجالمايا مجاهان وحقوق قرن عبد الله بن حسين وضي شرف حسين لأريي إنن كيسي ونهر أردن لوغوي وكان هذا جوغا ووغيسي لواد ملا عبد الله قاس أيها عندما العربية ظننا كوكوي هوسي ماذا استقع عيدا كيسا يا هستا كون سقال مغرية سقال يصدقي إلا اللي حي كنتوكي سركال إنجليزا عندما الأردن هستي سركال إنجليز الله يدعو سير جون بوغت قلوب أي عندما إنجليز ودن معمولي إنجليز كمرها وحكوية عندما دينك كلا إنجليز حكومي ما شنكا ورسنا يوان كبحيا دقال كقشاني هل ليسوكو إلا شنية تبنكر بي 1948 مالك ساكا بحيا مالنتو وقبطي مالنتي كهر رئيسي أي إسرائيل الدولة نبدأ نبقى نوارا أفريقيا توكيم شريعة طبعا كانت ذكي تجي يابيو أفريقيا توكيم نبدأ الدولة بعد السنة وضع كيوحي شوقي وردنا نويسوا حاقين إذن عربتا جلستو دقالين إن يرؤوا ودادر يطاعد يوحاها موياني نين كان دي شريع عبد القادر حسين عندما جلسوا سيود دقال لما ينبخوب كوكاكواي لما تنبيعوا تجي دمشق نمان كي مامل كهيو تقوي دوار رصاصتي ما يقول ده رصاص السيا والله قصقصها وصار نقضي بيت المقدس بيبي وحبوا اللودي دقال كسيدي سي كوغالي يسووا كشهاده قاتل عيد الكيسين مركي رصاص فقوا ضال جيب دولة عربية ودي دن عيد الدقال ما ينهي سي إنه رصاص يا ربما 1948 دقال كاسي حقوق بقبوبي دولتي إسرائيل ولغو نواقل عندما دي عربين أو شبا فلسطين توشن بقل أو مقالة يتولو كبدا لغا صارو حرية قحوتيو اللي يسوقو جيو ودك بقل كيبا سيديد يتضباط إسرائيل قعنتا يكون بكتو انت يري غزة يضف الغربية ومنا أردن أي هيستو منا مصر أي هيستو بيانا لوكا انتي سكالونا نيغا قاتل waxaan u malaynayaa labadii tooro horey la gaadhay 48 wixii ka dambeeyay dawladda Israa'iiliya waxay sameysay iyo dawladda Qarbiya waxay sameeyeen waa inoo harsayiin laakiin maanta halkaas ay iskaga daynayna waqtigii salaada gaadhay danta aan dariskan kala haayo dhamin waa hal qayb inaan tilmaamo oo ah Falastiin ama reer Gaza yays hayaana ay la dagaalamayaan ma yahuud ما يوحي لنا قال لهم يا يهود
أوردن ما هي وحلا دقلم يا السهيونيين هي غير قلبين ودول هو ويكتسين يبغى العربية الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله.